wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo Jowhar soo gaaray ayaa kulan la qaatay ardayda wax ka barata iskuulada ku yaala magaalada Jowhar, waalidiinta iyo maamulada iskuulada iyo waliba madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana laga wada hadlay sidii imtixaanaadkii fashilmay dib loogu laaban lahaa. Ardayda iyo waalidiinta iyo maamulada iskuulada oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay ku xun yihiin fashilkii dhacay isla markaana ay doonayaan in imtixaanka dib loo dhigo. وزيركين وزارة وحبرشة إنه هل هبينها كميدو إنه كسوق إنه إمت تلفزيون كقرن كصومالية سوفي ديستي كنا يراهدو إكزام كي لحد ما ده الله سوق لي كنسلوا حقيقة دي لقى تاس عدالة دينا ما أهن أنا عدالة دينا ربنا عدالة دينا ديار أنهاي وحنا أنا وزير وزارة وحبرشة أنا كعسيننا أفرت ما دو نوت لمن أفرت ما دو نوت لمن هدو نوت مستر نوت مستر لكن أنا إكزام هدي يكذب ما بلا بكرنو حقيقة دي لقى كل تبحنوك أنا عن دريم كرنو قف كنا دريم كرت مجرته سدس عبين موسوق عني وان دفرني وارفضني هردو وين قتكتي أنفر كمان خان خام ونوعنا حتى وين أنفر ما أنفري كرنا أنا قلت سدس أي هاي أنكر رفضني مثل نقول عقابة وزارة وحبرشة خلط أي شيء أي شيء لو عقابة أرضي الصومالي مدة سوا قلد وين أنا قلنا نقول عقابة تاسي قلد أيان واركانك وزارة أيضا أي قلد كشيء قلد كسر حالو بهين أي كسر صحضو كل تبو حالو بهين ضد قلد كاس قلي إني كود هرت أي سمر في حكم كاسي ما هن إني كسر ولا بتارضيدا وزير كينو إنه اسكم قناضو إماضو هبيس الهبيك تلفش قلق وصفر يستودها محلها اتحانكي وكنسل أسيقو سنكبير سنين وكل يتصدق بحكم بحب الأمن سلواتني تضبط قرتك سؤال ما كفكري ما يسوي دي سؤال ما يسوي دي هرتو سؤال إنه يسوي دي لواتني تضبط بحكم سؤال جيسا كل اللي باتنك رمضان نسيب وناك نجوا نقول عادة تنوعاتي حنون أي قبان أرددين وحكلا أجرو قف كذنبي قلي إن لقبت أي في عنتها لكن إن قف ذنبي قلي لقبتان ولا في عنيا وزير كنا وحبرشة وحنا مشينا عدي فلكان أما فلك فعشيان دكتي إني وحكي قبته إنه قبن أرددا سوحي قبته waxaan dhacaynin adduunka intii la joogaa ma jiraan waxaan rabnaa wixii dhacay inaan dib loo raacin ee aan saxno wixii dhacay waa dhaceen waa jirtaa inaan maaragtay ciyaalkeena ay fariisteen saddexdaas imtixaan oo dhigmayso 6 maado laba imtixaan oo dhigmi lahayd 4 maadana ay weli u dhiman tahay marka waxaan codsanaynaa maadaama ay wixii fashil noqdeen qalad dhacay ay noqdeen sidii wixii aan u sixi lahayn iyo sidii maaragtaa dawladdeena federaalka Soomaaliyeed ay nagala shaqayn lahayd sidii maaragtaa waxa dhacay ee loo sixi lahaa in aan maaragtaa falkeeda aan maaragtaa sida la yeeli lahaa aan ka tashano. Wasiir Goodax ayaa sheegay in imtixaan uu fashilmo balse loo baahan yahay in la dhabar adaygo. Maxamed Cabdiwaare madaxweynaha maamulka Hirshabelle asna hadlay wuxuu sheegay in loo baahan yahay in imtixaanka la qaado waqti munaasib ah oo Ramadaanka ka baxsan. امتحان وافشل معه ساعدنا لجوجا بنتلان امتحان قادس وافشل معه ودم هذا الدرس كا وكفشل معه الدون وكفشل معه لكن انت عن فشل انت ودوانا فيري بقول يا افر جوابوده امتحان لو قاداي ان حل كليه وحكايرتا 1% فشلكم runtii dadaal weyn aan gelinay laakiin waxa jeclaalaha inay suuragal idii aan lahayd dadka imtixaanka diyaariyay ee qaaday ee kormeeray hada arki lahayd shucuurtooda inay idinka xanuun badnaayeen maahan idinka ma xanuun yareen waxa kale oo muhiimsan dibkii dhacay in laga garaabo laga raali bixin geliyo muxuu ahay laga bixiyo muxuu ahay ii sheeg raalinimo ardada loo naxariisto waqtiga imtixaanku dhacay la tixgeliyo waqtiga uu dhici doono la tixgeliyo runtii inkastoo wasiirku ka hadlay duruufaha keenay haddana xalay waxaan akhrinayaa report wadan muxuu ahay Yurub ku yaala oo imtixaankiisi dib loo dhigaayo maadaama ay Ramadaan ay tahay imtixaanka GCC la yiraahdo oo systemka Ingiriiska hadayba wadanan muslim ahayn oo Ramadaankii dirtiis karaamo oo imtixaanaadkii uu dib u dhigaayo oo waalidiinta u tixgelinayo annagu waa qabnaa inaan tixgelino weliba Ramadaanka uu sii dhamaado oo ciidda loo sii dhawaado oo tahajjudkii la galo dhibkeeda ay leedahay taa ka hor dhici mayno laakiin sida dareenkeena aan u jeesanayna qodobka saddexaad waxa waaye imtixaankan imtixaan caam waaye
oo standardized test waddankoo dhan hal mataqaana cabira wax lagu cabiraa Soomaaliya wax la qabnaa Maxamed Ibrahim Honkebel TV Jowhar